haddii aad rabto wax aadan weligaa gaarin inaad gaarto waa inaad diyaar u tahay inaad samayso wax aadan weligaa samayn. Laba shay ayaa ku qeexaya dulqaadkaaga markii aadan waxba haysan iyo dabeecaddaada markaad wax walba haysatid. Webiga wuxuu jebiyaa dhagax weyn, sababtuna ma aha awooddiisa, laakiinse waa ku celcelintiisa. Weligaa ha uga quusan yoolkaaga waqtiga ay kuugu qaadanayso inaad gaarto. Anigu ma ihi wixii igu dhacay, waxaan ahay waxaan doortay inaan noqdo. Shakiga ayaa dila riyooyin in ka badan guuldarrooyinka inta ay dilaan. Waa inaad noqotaa isbeddelka aad jeceshahay inaad ku aragto adduunka. Qofka ugu horeeya ee raaligeliya waa kan ugu geesisan. Qofka ugu horeeya ee cafiya waa kan ugu xooga badan. Sidoo kale qofka ugu horeeya ee iloobana waa kan ugu faraxsan. Kalsooni iyo si adag inaad u shaqayso ayaa ah daawada ugu fiican ee lagu dilo cudurka loo yaqaan fashilka. Hanasan guusha ugu horeysa kadib, maxaa yeelay haddii aad guuldareysato marka labaad, bishimo badan ayaa ku sugaya inay ku yiraahdaan guushii ugu horeysay waxa ay ahayd nasiib. Dadka qaar waxay u arkaan midabka madowga mid dareen ahaan xun, laakiinse sabuuradda madow ayaa ka dhigta nolosha ardayga mid ifaysa. Hal bug oo fiican wuxuu la mid yahay 100 saaxiibood oo wanaagsan, laakiin hal saaxiib oo wanaagsan ayaa la mid ah maktabadda. Haddaad rabto inaad u iftiinto sidii qoraxda oo kale, marka hore u guba sidii qoraxda oo kale. Inaad kufto oo aad dhulka ku dhacdo waa shil, laakiinse inaad dhulka sii taalo waa doorashadaada. Haddaad jeclaato 2 qof isku mar, dooro qofka labaad, maxaa yeelay haddii si dhab ah aad u jeclaan lahayd qofkii hore, ma jeclaateen qofka labaad. Mararka qaarkood joogitaanka qof ayaa kaaga dhigaya adduunka meel fiican oo qurux badan. Sidoo kale mararka qaarkood maqnaanshaha qof ayaa kaaga dhigaya adduunka meel fiican oo qurux badan. Noloshu 10% waa waxa kugu dhacaya, laakiinse 90% waa sida aad ugu jawaab celinayso. Labada maalmood ee ugu muhiimsan noloshaada waa maalinta aad dhalatay iyo maalinta aad ogaatid sababta aad u dhalatay. Caqabadaha ayaa ah nolosha waxa ka dhiga mid xiiso leh. In laga guulaystana waa waxa nolosha micnaha u yeela. Haddaad eegto waxa aad haysato, waxaad ogaanaysaa inaad waxyaabo badan aad haysato. Balse haddaad eegtid waxa aadan haysan, waxaad ogaanaysaa inaadan waxba haysan.